السلام عليكم. bilowgii lixdamaadkii hogaamiyihii Sofiyeedka ee xilligaas Nikita Khrushchev ayaa hadal uu ugu hanjabayay reer galbeedka waxa uu ku faanay in Sofiyeedku haysto maraakiib ka boodi kara buundooyinka. xilligaasi madaxdii reer galbeedku maysan fahansanayn waxa uu hogaamiyahani ula jeeday maraakiibtaas buundooyinka ka boodi kara. waxa uu ka hadlayay mashiin aan horey loo arag oo ay Sofiyeedku sameeyeen kaas oo loo yaqaano Ekranoplan ahna markab ku socda xawaaraha diyaaradaha oo kale oo badda korkeeda ka kacaysa oo iyada iyo biyaha ay masaafo yar u dhaxayso arintaas oo u sahlaysa xawaare aad u sareeya inay ku socon karto. 1950 ayaa waxaa dooniyaha ugu xawaare dheereeyay ay ahaayeen nooc loo yaqaano hydrofoils. dooniyahan ayaa marka ay xawaare ku soconayaan kor uga kacaya biyaha oo lugahooda kaliya ayaa biyaha ku dhex jira. taasoo u fududaynaysa inay xawaare aad u sareeya ku socdaan oo ay ka dheereeyaan doonyaha kale maadaama doonta badankeed ay badda ka sareyso. doonyahan ayaa xawaarahoodu waxa uu gaari jiray 110 kilomitir halkii saac. haddaba injineer Sofiyeed ah oo magaciisa la oran jiray Rostislav Alexeyev oo naqshadayn jiray doonyahaasi dheereeya ayaa waxa ku soo dhacday fikrad cusub oo ahayd inuu doonyahaasi dheereeya naqshadooda bedelo oo uu u yeelo baalasha diyaaradaha oo kale. doonyahan diyaaradaha oo eg ayaa markii ay xawaare sare ku socdaan biyaha ka soo dhex baxaya oo u shaqaynaya sidii diyaarad oo kale. doonyahan ayaa marka biyahaysan taabanayn u sahlaysa in xawaarihii diyaaradaha oo kale ay ku socdaan. waxaana loo bixiyay Ekranoplan. waxaa dhici karta in dadku isku khaldaan maraakiibtan loo yaqaan Ekranoplan iyo diyaaradaha badda ku degi kara oo aad loo isticmaali jiray ka hor intii aysan dawladuhu maalgashan ayraboorada wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka. diyaaradahan badda ku degi kara ama ka kici kara ayaa waxa ay ka duwan yihiin Ekranoplanka oo Sofiyeedku sameeyay. waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah in diyaaradaha badda ku degaya ay awood u leeyihiin inay hawada sare aadaan oo waxay la mid yihiin diyaaradaha kale markay duulayaan. laakiin Ekranoplanka ayaan awood u lahayn inay biyaha ka fogaato oo markay xawaaraha sare ku soconayso biyaha ayay aad ugu dhowdahay oo awood uma leh sida diyaaradaha caadiga ah hawada sare inay aado. Ekranoplanka ayaa waxay ka faa'iideysataa hawo iyada iyo biyaha u dhaxeeya oo u sahlaya inay badda ka dulmarto. arrintan ayaa waxa loo yaqaanaa ground effect oo xataa waxay saameysaa diyaaradaha yaryarka ah ee raba inay ayraboorada ku soo degaan. bayloodiyada diyaaradahaas wada waxay dareemaan markay rabaan inay ayraboorka ku soo degaan inay hawadu sii kaxaysato oo ay ku adkaato inay ayraboorka ku degaan. oo markay diyaaraddu dhulka u soo dhawaato ayaa hawadii u dhaxaysay diyaaradda iyo dhulka ay la sii taraaraxaysaa diyaaradda. raadka hawadaas ayaa waxa marka loo yaqaan ground effect. haddaba Ekranoplanka Sofiyeedku sameeyay ayaa waxay ka faa'iideysanaysaa hawadaas u dhaxaysay iyada iyo badda oo u fududaynaysa markabkaasi inuu duulo oo ka saro maro badda. Sofiyeedka ayaa samaynta markabkan uga dan lahaa inay isaga qariyaan raadarada maadaama aysan ahayn diyaarad hawada sare maraysa oo ay raadaradu qaban karaan. waxaana intaa u sii dheer maadaama ay badda korkeeda ku soconayso oo aysan biyaha taabanayn aysan maraakiibta dagaalku soonaarkooda uusan ogaan karin. waxay kaloo awood u yeelanaysaa inaysan waxyeelayn minooyinka badda lagu aaso. Ekranoplanka ayaa waxay awood u lahayn inay ku socdaan xawaare gaaraya 500 oo kilomitir halkii saac qaadina kara 600 oo tan. laakiin caqabado badan ayaa soo wajahay oo ay ka mid ahayd inay u baahnayd jawi degan oo aan mawjadaha ama hirarku baddu aysan kacsanayn. waa waxa keenay inay ka hawlgasho badaha yaryar ee dhulku ku hareeraysan yahay oo aan mawjadaha waaweyn lahayn sida badda Caspianka. taasi macnaheedu waxa weeye in Ekranoplanku aysan awood u lahayn inay ku safarto badaha waaweyn sida badweynta Atlantiga. markuu Sofiyeedka hoggaankeedii la wareegay Brezhnev ayaa waxa uu yareeyay dhaqaalihii mashruucan oo waxa dib u dhigay inuu mashruucani hana qaado oo diyaaradii ugu horeysay oo ciidamada lagu wareejiyo waxay suurta gashay 1987 iyadoo mid kalena dhismaheedu meel gabagaba ah marayay markii uu Sofiyeedku burburay. intaasi ha noogu jooga barnaamijkii maanta intii aan mar dambe kulmi doono nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi